waxaana soo gaarayo mooshinno baarlamaanka dhexdiisa laga wado oo la rabo in gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka gudoomiye Sacdiye meesha maxaan ku raadayay laga saaro iyadoo danta iyo hadafka la leeyahayna ay tahay in wasiir Faarax markuu ugu horeyso beeshiisa looga soo qaado looga soo maxaan ku raadayay xoogo kadibna la geeyo gudoonka baarlamaanka marka arintaasi oo noqotay arin yaab ah iyo ama kaaga marka hore waxaan rabnaa madaxweyne Xasan Sheekh warbixintaas naga ka soo gaarayso saxnimadeeda iyo khaladnimadeeda adiga ayay ku taalaa inaad jawaabteedana soo siiso oo maxaan ku raadayay odayaasha iyo dadka kursigan leh aad maxaan ku raadayay jawaab ka bixiso mid labaad waxa cajiib ah dalku ma madiya dalku ma gablana maxaa sababayo in la yiraahdo jaga kasta oo jirtaahay loogama maarmo wasiir Faarax Sheekh Cabdulqaadir marka arintaasi waa arin cajiib ah waaye madaxweyne Xasan Sheekhna waxaan rajaynayaa ballanqaadkii uu sameeyay oo ah inuu wado tareen dheereeya cid kasta qaaday inuu arinta ku adkaysto kana dhabeeyo oo aysan noqonin waxa meesha yaala inay tahay sitayma noqto oo koox yar qaado marka madaxweyne arintaasi jawaabteeda adiga ayaan ka rabnaa waa dadku waa ehel waxbay wada qaybsadaan waxba la leeyahay dawladnimada Soomaaliyaana ku dhisan in wax la wadaago maalinta la gaaro qof iyo cod iyo doorasho maxaan ku raadayay taas waxa waaye waa sugeynaa mid kale waxaan rabaa ra'iisul wasaare Xamse inaad hawshaani soo dedejiso sababtoo oo ah waan fahmi karaa inaad mararka qaarkood dhihi karto dalka dagaal ku jira laakiin waxaan ku xusuusinayaa 1964 ra'iisul wasaare Cabdirashiid Cali Sharmaarke oraah caan oo laga hayo ayaa jirto oo ah gacanna waa ku wooteynayna gacanna dagaalka ku galeynaa marka waxaana la qabanayay doorasho qof iyo cod oo dalka oo dhan ah marka adiga mudan ra'iisul wasaare waxa ku yaala oo kaliya kursi hal kursi ah oo dadka dooranaya xafiiskaaga uu qaado marka waxaan ka codsanaynaa arintaasi guddiga soo magacaabistiisa inaad dedejiso